sheekhu wuxuu sameeynaya marka ihsaa'iyaat ama tirakoobiyo ayuu soo qaadanaya runtii aad u cajiib badan aadna aad ula yaabaysa markaad aragto waxyaabaha uu soo qaadanay maanta jahliga maanta muslimiintu meesha ay ka joogaan waxa uu leeyahay tusaalaha soo qaadanaya waxaa ka mid ah 15 sano buu yidhi ee ardadka u dhaxeeya dadooda u dhaxayso 15 jir ilaa 24 jirka sheekh saan sheegna waa sheekh misri marka masar buu tusaalahan soo qaadanaya wuxuu leeyahay jahliga dadka aan waxna akhrin karin waxna qori karin halka jahli uu ka joogo wuxuu leeyahay dalka masar waa boqolkiiba 30 wax ku waa 29.6 boqolkiiba dadku aan waxna qorin waxna akhrin ay ka marayaan buu leeyahay arintaas marka waxa uu dhigantaa buu leeyahay 10 qof bahe saddex kamid ah inay saasiin oo ayna waxna qori karin waxna akhrin karin 10 qof meel joogta saddex kamid waa ummi waxna ma akhriyaan waxna ma qori karaan halka arintaas uu leeyahay Israa'iil oo dawladda ay aad garanaysaan ah aw jahli uu ka yahay boqolkiiba 2 ayuu ka maraya boqolkiiba 2 marka maxaa waa dadka waa boqolkiiba 98 waa dad wax akhra waxna qori kara halka ay masar boqolkiiba 30 ay jahli ka yihiin buu leeyahay waxa kale oo arin la yaabo dunida masiixiga ah dunida masiixiga ee dadkan islaamka ahayn ee muslimka ahayn kolkii la fiiriyo dadka wax akhriya waa boqolkiiba 9 dadka wax akhriya weeyaan si kale hadaan u dhigno 15 dal oo kamid ah wiilay dunida islaamka dunida kristaanka ah 15 oo dunida kristaanka ah boqolkiiba 100 waa dad mutacallimiin oo wax bartay ma jiro hal qof oo waxna akhriyo kari waxna qori kari marka 15 ka dal waxay ka dhigan tahay marka halkaas wuxuu leeyahay boqolkiiba 98 ayaa dhamaystay dugsi hoose boqolkiiba 40na jaamacad bay tageen dunida masiixiga ah boqolkiiba 98 waa dadka dhamaystay dugsiga hoose aqoonta leh dugsi hoose dhamaystay boqolkiiba 40na waa dad jaamiciin oo jaamacada ka baxay waanu tagi doonaa dunida islaamka هي دنيا الإسلام كورن دنيا الإسلام كبولي شيخ dadka wax akhriya waxna qori kara waa boqolkiiba 40 konton kamida ayaa dugsiga hoose dhameysay inta kale waxaan qori karnaa laakiin boqolkiiba 40 boqol hadana boqolkiiba 40 konton kamida ba dugsiga hoose dhameeyay ka baxday imisa jaamacad ka tibaa islada boqolkiiba 2 ayaa jaamacad ka tagtay dunida islaamka oo dhan halka iyaga boqolkiiba 40 ay jaamiciin yihiin dadka maxalmad la sanan gaari karo arinta marka wuxuu leeyahay sheekhu Suudiya ma faqri ba keenay inay dunida islaamku maanta dunida saa uga dambayso aqoon ahaan ma faqri ba keenay maya buu sheekh ee aqoonta ayaan qiimo ku lahayn inaga agteena aqoonta maadiga maanta ayaan qiimo tiray inagina deedna waka wada aragtaa halkan ka taaganah tusaale buu soo qaadanaya dalka Kuuba la yiraahdo waa dal faqri ah dadkeedana wuxuu leeyahay qof aan wax akhri karin waxna qori karin kuma jiro dadkoodu boqolkiiba 100 waa mutacallimiin dadkayga waaweyn ee markaa 15 jir ka weyna wuxuu leeyahay 0.2 ayaan wax qorin inta kale dhan waa wax wada qoran waxna akhrin karaan dhanka kale caalamka islaami hadaan eegno buuri caalamka islaamka oo dhan waxa jaamacadaha ku yaala hadii aan fiirino waa 600 oo jaamacadood caalamka islaamka jaamacadaha ku yaala buu leeyahay sheekhu waa 600 oo jaamacadood haye maxaad malanaysaa marka jaamacadaheenu dunida islaamka oo dhan marka la isku daro 600 oo jaamacadood wuxuu leeyahay dalka Mareykanka oo kaliya waxa ku yaala 5,000 iyo dhowr boqol oo jaamacadood dunida islaamka oo dhan la isku daray maxaa ku yaala 600 oo jaamacadood Mareykanka kaliya maxaa ku yaala 5,000 iyo dhowr boqol oo jaamacadood markaas wali wuxuu leeyahay jaamacadahooga qualified ka hayga ee la aqoonsan yahay ee cilmigoodu aad u sareeyo oo kaliya waxay dhan Mareykanka waa 2,618 jaamacadood ajiib muslim oo dhan bulay marka hal dal ayaa 4 jeer ka jaamacad badan balka war muslimiinta oo dhan marka la isku daro dalka Mareykanka oo kaliya ayaa 4 jeer ka jaamacad badan dhinaca kale
محاضرة وشيخ مصطفى كور ما يعرف تاني يدنا ويدلفت وإحساسك سمان أيوه بقول حليه نوبل بريسك دنيا اللي بحيي نوبل بريسي دنيا اللي بحيي كونتونية تضبان وضمان الإسلام كواحد كوك قياسان وليه هو كونتونية تضبطل كونتونية تضبط دل الإسلام كا صدح جور يقول يقول كقاتين نوبل بريس كور نوبل بريس تعالم كلا بحيو دنيا الإسلام كصدح جور كلية أي كقاعدات وليقول وليبا صدح أنا قاتنا وحولي وصدح ننو ها وقال هذا اللي جوكتي وصدح ننو مركز جامعة عليه مالها كل مية بوري كتجي مد مريك الجوجي مجرم الجوجي مالهاس أقوانت إيجو البارس كوسي سمي صدح أنا أيا وليقول كقاتل بالجامعة مسلمين تا وحي نوبل بريس وحي نوبل بيس بريس وحي نوبل بريس اللي بحجي صدح ذا حبيك قاتل مركز أرنتاس واحد ودقن تابولي هاي waxay arintaas u dhigmaysaa markii loo qayb waxa noqonaysaa wixii Nobel Prize la bixiyay oo dhan waxaan ka qaadanay 0.05 baan inagu Nobel Prize oo dhan ka qaadanay ka haysanaa 15 milyan ummadda muslimiinta waxay ku tilmaamaan waa bilyan iyo nus meelahaas ku tilmaamaan bilyan iyo nuskaasi saddex jeer oo kaliya ayay qaateen Nobel Prize cilmiga ay ku qaateen halka 15 milyan oo yahuuda 15 milyan oo yahuuda taqaanaan maanta aan xataa la aqoonsanay dawladooda waa waxay wuxuu leeyahay laga bilaabo sanadkii 1902 ilaa 1910 laga soo gaarayo waxay qaateen 150 Nobel Prize kor caalam islaam oo dhan isku daray muxuu qaatay saddex yahuuda yare 15 milyan waxay qaadatay 150 Nobel Prize ay qaateen oo waliba science ah ma aha waxyaabaha la bixiyo Nobel Peace Prize la bixiyo wuxuu leeyahay waliba sheekhu la siiyo caalamka islaamka iyo la siiyo waa waxyaabo yar yar oo waliba dadka ahda xuquuqda u dooda dadka yiraahdo tusaalahan rag madaxda qaata wuxuu soo qaaday rag yahuuda aqoonsaday ya dad saasa wax yar yar oo maalayacna inaga nagu maawiliya laakiin aqoonta iyo sayniska bahalo Nobel Prize lagu bixiyay 550 bay yahuudu qaadatay sidoo kale wuxuu leeyahay sheekhu adabka iyo gabayada Nobel Prize lagu bixiyo laba ay muslim ku qaateen waligood iyadana dhakhtarnimada iyo biology waxa la bixiyay 169 ayaa la bixiyay xulay inta taariikhda u dhaxaysay laga soo bilaabo 1902 ilaa 1910 Nobel Prize la bixiyay adduunka inta la bixiyay yahuudu waxay qaadatay chemistry oo kaliyata waxa la bixiyay macnaha cilmiga sayniska waxa la bixiyay 169 waxay qaateen 49 bay yahuudu kaliya qaadatay chemistry waxa la bixiyay 158 Nobel Prize yahuudu maxay qaateen 28 bay yahuudu qaadatay physics 158 Nobel Prize la bixiyay 45 bay yahuudu qaadatay dhaqaalaha 66 Nobel Prize la bixiyay 28 bay yahuudu qaadatay barkawar markii la isku soo daro taariikhda inta soo dhaxaysa intaas Nobel Prize bay qaateen wuxuu leeyahay sayniska waxay qaateen iyadana marka arintaas waxay ka dhigan tahay Nobel Peace Prize ka yahuudu qaateen saynis oo dhan Nobel Prize kiisa ay qaateen waxay noqonaysaa 25% inay yahuudu qaadatay 15 milyan dhanka kale nin saynisyahan oo Mareykan ah baa wuxuu leeyahay qarniyadii dhexe u fiirso walaal maanta halkan taaganahay Nobel Prize aad aragto ee cilmiga ah intaas yahuuda ay inta milyan qaadanaysa muslimiintuna maxaa nidhi inta yar aad aragtay ka qaatay ninkaas marka taariikhyahanka Mareykanka wuxuu leeyahay saynisyahanka qarniyadii dhexe qarniyada loo yaqaan qarniyada loo yaqaan oo kamid ah macnaha caalamka islaamka wuxuu leeyahay waxa caalamka adduunka waxa soo maray oo jiray 130 caalim baa soo maray buura qarniyada dhexe qarniyada loo yaqaan 130 caalim baa soo maray adduunka oo ah dadkii sayniska iyo biology-ga ama teknolojiyada hogaaminay 130 kaas baa wuxuu leeyahay 120 kamid ah waxay ka yimaadeen wadamada islaamka maanta halkan marna wada aragtaa qarniyadan halkan marna u fiirso waa 130 maxaa 120 maxaa qaatay waa muslim oo adduunka hogaaminay cilmiga bartan maaha walaal cilmiga diiniga iyo shariicada islaamka maaha
وعلمي الساينسكا ما أنت أدون كتر تمايو يتكنولوجيا دون لوكلا بدينيو بقولي صدقني بقولي لبعتنا المسلمين ويهجمنيا maxaa soo haray 10 ka soo haray 4 euro ka yimaadeen bur inta kale adduun kala qaybsaday aragtida shanaad waxa jira intii ay soo saareen bur jaamacadaheena waxa jirta wax la yiraahdo bur sheekhu hijratul uqul ama la yiraahdo brand drain loo yaqaan bay sameeyaan bur dadkeeni xataa wax bartay intii yareeda tabcaanka ahayd muslimiintu ay soo saartay ee jaamacadaha yare tabcaanka ay haysteen ay ku soo saaray ay ka soo baxday baa waliba hadana Mareykanku wuxuu leeyahay intaas wuxuu bixinayaa fiiso oo dadka uu ku qaadanayo way tahriibaya way tagayaan dadkii macnaha halka caalamka islaam wax ku bartay iyo dadkoodii ay wax bareen intii u yarooneed ee wax garanaysay ee wax u noqon lahayd intiina iyaga qaadanaya Mareykan baa qaadanaya marka ninba wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay buuri Mareykanku ma doonayo adduunka kaliya inuu hogaamiyo wuxuu doonayaa xidiguhu inta u jiraan inuu u jiro adduunka marka qaybaha iyadana lafteeda tahriibta iyo kaxeynta dadka uu qaadanayo Mareykanku wadamada islaamka laga qaadanayo xataa inta yarada wax soo baratay wuxuu leeyahay sheekhu toddobaadkii laga soo bilaabo qarniga toddobaatanaad oo kaliyata 12 milyan oo aqoonyahana oo muslimiina ayuu qaatay Mareykanku 12 milyan ayuu qaatay oo aqoonyahana aye kaliya markii loo eego buu dhakhtarada Carbeed ee ku nool Yurub boqolkiiba 50 kamida dhaqaatiirta Yurub boqolkiiba 50 kamida waa Carab sidoo kale injineerada Carbeed boqolkiiba 23 injineerada Yurub kamida waa Carab oo iyadana waa Mareykan baa qaatay culimada khubarada ah boqolkiiba 15 kamida galbeed bay jiraan buu sheekhu oo iyadana loo qaxistay dadka culimadaas cilmiga ama aqoonta ama khibradaha leh boqolkiiba 15 kamida oo islaamka ah iyadana Yurub bay jiraan ingiriiska oo kaliya buu leeyahay boqolkiiba 30 iyadana waa Carab dadka dhaqaatiirta iyo aqoonyahanka ardayda loo diro buu leeyahay waxbarashada ee wadamada loo diro ee in ummadda wax u soo bartaan loo diro boqolkiiba 54 kamid ma soo noqdaan halkaas iyaguna ay la maal gashada laga shaqeystaa oo hawlahooda lagu qabsadaa dadka shahaadooyinka sare haysta buu leeyahay sheekhu ee Carbeed sanadkii 2000 oo hadda aad garanaysan 2020 kan ku jira sanadkii 2000 oo kaliya tabuu leeyahay marka la tiriyo 450,000 ayaa joogay reer galbeedka 450,000 oo aqoonyahana oo islaam ah baa joogay reer galbeedka sanadkaas marka dadkaasi dadkoodii intay soo dhaafeen baa waliba waxay hadana ku dadaalayaan reer galbeedka iyo maanta ummadan aad aragtaan in hogaaminayso dunida wax la isku hogaaminayo ee lagu kala horeeyana maanta waa aqoonta maadiga aqoonta maadiga iyo lagu hogaaminayo adduunka tiknoolajiyada aad maalin walba soo baxaysa maalin walba wax cusub la soo saarayo wax kale ma aha aqoonta maadiga lagu dadaalo marka dadkaas intay dadkoodii ka soo gudbeen ay dadkoodii wax baranay ka yimaadeen baa waliba dadkii kale ee wax bartay bay xataa kaxaysanayaan oo qaadanayaan marka sheekh wax badan oo waxa jirta oo qaybta aad uga sheekaynayo oo ay kamid tahay xataa fiisooyin gaar ah in loo diyaariyo dadka oo sanad walba xataa miisaaniyad intaas oo milyan ama intaas oo malaayiin in loo qabto si dadka aan loo soo kaxaysto oo loo tahriibiyo oo iyagu u qaataan deedna ay uga faa'iideystaan marka adiga aqoontaadi meeday